ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa maanta tababar hal maalin socda u qabtay warbaahinta ka hawlgasha gobolka Gabiley. Tababarkani oo ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo aqoonta saxufiyiinta ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier Maxamuud Jaamac Xuuto iyo qaar kamid ah macallimiinta bixinaysa casharrada lagu baranayay tababarkaasi. ujeedada halkan aanu nimidna waxa weeyaan in aanu taageerno saxafiga si badqabkiisa looga shaqeeyo iyo sidii aqoon kororsi loogu sameyn lahaa runtii intaan waxaanu ka dareemaynaa warbixinaha iyo xogaha aan ka ururno runtii maalin walba xaaladda saxaafadda aad baan uga xunnahay in cabashooyinka ugu badan ay ka yimaadaan in wariyaasha laga hor istaago xuquuqdii warhelidda oo runtii aad moodo in gobollada iyo degmooyinka meelo badan oo nu tagnay ay ka soo noqonayso in maamuladii heer gobol iyo heer degan runtii ay ka hor istaagayaan in xadhigii iyo nidaamkii sharciga ahaa iyadoo aan la marayno runtii maalin walba saxafiyiinta laga hor istaagayo wararkii iyo barnaamijyada dunidii maadaama ay korayso oo teknolojiyadii iyo globalizationkii ama adeegayntii ay yihiin kuwo socdo oo isa soo taraya in aqoontii saxaafadana sare loo qaado oo marba halka la marayo lala socodsiiyo oo iyaga laftooda uu noqdo cilmiga la siinaya mid la jaan qaadaya kolba waqtiga iyo marxaladda la marayo muhiim bay ahayd waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saxaafadda ee gobolka Gabiley sidoo quruxda badnayd ee markaa ay uga soo qayb galeen iyo aqoon isweydaarsi sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina ka mahadceliyay tababarkaasi loo qabtay qaar kamid ah warbaahinta ka hawlgasha gobolkaasi Gabiley Soldier waxaan soo jeedinayaa inay halka ka sii wadaan dadaalka oo ay dhalinyarada ahmiyad تكوّدنا إسيان بالعدي أقونتنا إفيدنا كيف إذا إنا أول مرة نقطوسيا حتى سنة كم مرة أما الله بدي سنة مر ساعة هو كلامه قط إذا هو إنه سمعنا إنت نسقو إسولا كاشنو قفني من هدي يشقدي وهي في النمو كانوا شيء هيك سبلي يلا قط إذا طبعا هو قط إذا يرجعنا سياكا يوم كانوا حديث سو شيء أنا أقول مهكارو توميها Soldier وشيدي يتوقعنا Soldier مرور بقى مقادو كتاكرا أو شروط ده قبيلة إنك هاي دستورك النور ده مستر أو تبى تجناد الحكومة يقول ياش مشاريع تجنته أنا أقول هذا يا مجا صحافة أمور بين تكاول كشجوا بالجبل وحنا ما نقبل على نسوي شيء إننا مسؤولين توصل سلسلة أورو كSoldier أو ينقدر شو قدومي Soldier مستقبلته iyo macallimiinta seminaarka bixinay sharaf weyn bay noo tahay in masaafo inta leeg ay noo soo maraan mas'uuliyiintu iyagoo ka duulaya in saxaafadda laga dhiso xagga aqoonta maadaama ay jiraan saxafiyiin cusub oo ku soo biiray maalinta ka dambaysa kuwaas oo u baahan in la dhiso aqoontooda iyo cilmiga ay ku hawlgaliyaan si saxafiga loo badbaadiyo loona helo saxafi badqaba si kastaba ha ahaatee tababarkani ayaa tababarkii labaad ee loo qabto warbaahinta gobolka Gabiley intii lagu guda jiray sanadkan 2018 waa Sakariya Nuux Ibrahim warbaahinta SBC gobolka Gabiley